Assalaamu calaykum. Kulanti wacan daawadayaal ku soo dhowaada qormo xiise leh oo ku saabsan falcelintii ay ka bixiyeen madaxda dunidu iyo wixii ay ka qoreen jaraa'idada dunidu dilkii foosha xumaa ee loo geystay madaxweynihii hore ee dalkaasi Masar Maxamed Mursi. Arrinta ugu layaabka badan, ceebta ugu weyn ee dul hoganaysa ama arrinta ugu layaabka badan ee ka dhacday dalkaasi Masar kadib dhimashadiisii waxay ahayd in si degdeg ah loo duugay isla markaana lagu duugay xabaalo gaar ah oo aan inta badan dadka lagu duugin, taas oo looga shakiyay ama looga cabsi qabay in lagu qarinayay suntii lagu muday amaba uu ku dhintay ee Maxamed Mursi. Dad badan ayaa aaminsan inaan sun lagu mudin balse uu u dhintay cudurkii macaanka ee faraha baas ku hayay intii uu jeelka ku jiray. Isku soo wada duubo, dhimashada Mursi waxaa mas'uul ka ahaa maamulka uu horkacayo Cabdifataax al-Siisi, kuwaasoo u diiday daawada isla markaana si hoose u jirdili jiray. Kadib markii aad looga cabsiiyey loona hanjabay ayaa jaraa'idada dalka Masar gaar ahaan kuwa Qaahire ka soo baxa dadeen amaba dabooleen dilkii Mursi. Waxaa la filayay inay ciwaan far waaweyn ku soo qoraan bogagga hore, balse iska daa taas waxay u guuri waayeen inay yidhaahdaan madaxweynihii hore ee Maxamed Mursi, taa beddelkeedana waxay ugu yeedheen magaciisa oo keliya oo ay ku qoreen meel hoose oo ka mid ah bogagga jaraa'idka. Xisbi siyaasadeedka Ennahda ee Tuuniisiya ayaa sheegay inay maqleen war aad u fool xun oo naxdin badan isla markaana waxay uga tacsideeyeen shacabka reer Masar iyo guud ahaanba muslimiinta. Dhaqdhaqaaqan siyaasadeed ayaa rajo weyn ka muujiyey in marun cadaaladdu iman doonto oo kuwii Mursi dilay la horkeeni doono cadaaladda. Maamulkii ka dambeeyey afgembiga ayaa leh mas'uuliyadda dilka Mursi oo ay 7 sano ku hayeen jeel keligii iyagoo ka mamnuucay daawooyin uu qaadan jiray iyo xataa booqashada. Sidaasi waxaa yidhi xisbiga mucaaradka Ennahda ee dalkaasi Tuuniisiya. Waxaana soo gaadhay murugo weyn oo ku saabsan dhimashada lama filaanka ah ee madaxweynihii hore Dr. Maxamed Mursi. Waxaan taasi tiiraanyada u dirayaa qoyskiisa iyo qaraabada. Sidaasina waxaa bartiisa Twitterka ku soo qoray amiirka Qatar, Amiir Sheikh Al-Hamid Al Thani. Madaxweynaha Turkiga ayaa ku eedeeyay dhimashada Mursi maamulka Masar, waxaanu yidhi taariikhdu marnaba ma iloowi doonto kuwii weerarka u geystay Mursi ee sida hoose u soo dilay, kuwaasoo markii horeba ku hanjabay inay dilayaan Mursi. Hogaamiyaha Turkiga ayaa ugu yeedhay madaxweynihii hore ee Masar shahiid. Turkigu wuxuu ka mid ahaa taageerayaashii ugu waaweynaa ee Mursi xilligii uu haystay xilka madaxtinimada ee dalkaasi Masar. Kumanaan qof ayaa isugu soo baxay salaatul jinaase qaayib ah oo ay ku tukanayaan Maxamed Mursi magaalada Istanbul, waxaana soo qaban qaabisay wasaaradda diinta iyo awqaafta. Afhayeenka qaramada midoobay ayaa tacsi tiiraanyale isna u diray qaraabadii iyo taageerayaashii Maxamed Mursi ee dalkaasi Masar. Haddaba aaway waddamadii islaamka calanka u sidi jiray? Sacuudigii miyuu ka hadlay? Imaaraadkii maxaa ku dhacay? Maxay uga hadli waayeen dilka hoose ee Mursi? Jawaabahaasi oo dhan waxaad fahmi kartaa marka aad ogaato in madaxda Sacuudiga iyo waddamada kale ee xulufada la ahiba aanay muslimiinta dan ka lahayn balse ay ilaashadaan danta Maraykanka iyo danta kursigooda oo keliya. Qormadan oo aanu ka soo turjunay mareegta Al Jazeera gaar ahaan qaybteeda afka Ingiriisida intaas ayay noogu dhan tahay. Sidaa iyo kulanti dambe oo wacan.